wuxuu xaqiiqdii ku nagi lahaa yacni ku sugnaan lahaa gudaha calooshiisa yacni caloosha xuudka ama nibiriga ilaa iyo maalinta soo bixinta waa maalinta qiyaamaha laakiinse waxaan ku soo tuurnay xeebta bannaanka ah isaga oo bukay yacni isaga oo aad u liitay tabar ahaan markii yuunis calayhi salaam uu garowsaday inuu kula yimaado erayadan calooshii xuudka ama nimirigii dhexdiisa wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min addaalimiin ma jiraan cid mudan oo xaq u leh in la caabudo adiga mooyaane allow adigaa nasahan aniguna waxaan ka mid noqday gaflooyada ducadii nebi yuunis waxay ka soo muuqatay carshigii alle hoostiisa saa malaa'igtii waxay alle ku yidhaahdeen rabbiyow waa cod daciif ah oo la yaqaan oo ka imaanaya meel aan la garanayn markaasuu alle ku yidhi miyaydaanan garanayn codkaasi waxay yidhaahdeen may rabbiyow waa kuma alle weyne wuxuu ku yidhi waa addoonkaygii yuunis saa waxay ku yidhaahdeen rabbiyow ma addoonkaagii yuunis oo salaad iyo sadaqo iyo camaladiisa wanaagsan ay samada yimaadaan dabadeed waxay ku dhaheen rabbiyow miyaadan u naxariisanayn maadaama camaladiisii ay wanaagsanaayeen markii uu ladnaa oo aadan ka saarayn dhibka uu maanta ku jiro saa alle markaasi ayuu xuudkii ama nimirigii ku amray inuu yuunis ka tuuro xeebta